3. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو كهذا لما قاعيجا وحلي هذا أبوكات محمد حسن راجع تكن دلكن UK مقالة لندن. وحن دوني أمانة أنا أشرحه أمة الصومالية حسبي كان غير هذا ما قاعيسا حسبي كأمة الصومالية حسبي كم على أساسه لما كوني طبعاً وأنا حسبي diyaar u ah dhibaatadii ummadda Soomaaliya soo gaartay inuu ka saaro inuu isu keeno inuu heshiisiyo si loo helo horumar iyo nabadgelyo iyo maxaan iraahdaa ummad maskaxdoodii laga dhaqay dhibaatadii qabiilka lagu abuuray ee doonayso in ay wadanka dalka wax u qabato haddii ahaa lahayd caafimaad hadday ahaa lahayd maxaan iraahdaa aqoon haddii ay ahaa lahayd adeeg guud oo dadku u baahan yahay waxaan ognaa dadku 25 sano in dhibaata ku habsatay waxaan ognaa maskaxdooda weli in dhibaatadaasi ay ku jirto waa in la kala qoqobay oo dagaallo iyo mashaakil lagu furay isla markaana dowladda la dhisay dowladdiina aysan go-aan ka gaarin marka haddaba waxaan doonayaa xisbiganu isagoo kasbanayo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waayo arag aqoon iyo cilmi iyo maxaan iraahdaa horumar si loo gaaro ummadoo dhan rag iyo haween inay u guntadaan ka qayb noqdaan bacdama 1,800,000 oo dad oo xisbiganu oo mataqaana maarta oo member ay ka yihiin ama xubin isla markaana uu ka furan yahay 18 gobol ee dalka Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiganu waa xisbi u adeegayo ummadda waa mid doonaya inuu wadada toosan tuso waa mid doonaya shariifkii doorkii shariifka ay dunida ku lahayd inay soo ceshato iyo karaamadeedii marka xisbiganu waa xisbi u adeegaya ummadda Soomaaliyeed waa xisbi doonayo inuu ummadda horumar gaarsiiyo waa xisbi doonayo inuu ummadda walaaleeyo xisbiganu sidoo horeba u sheegay ama horeba uu kugu macneeyay waa xisbi ummadda ka dhaxeeyo waa xisbi aan ninan laga lahayn waa xisbi aan doonayn qabiil iyo mataqaanaa maaragtay isku dir Soomaaliyeed waa mid doonaya ummaddii kala tagtay adduunyada dacaladeeda ku kala maqan inuu isu keeno isla markaana ka dhiso dowlad shariif leh ama dowlad sharaf leh oo qiimo iyo qadarin dunida mataqaanaa doorkeeda shariifka ay ku leh ka soo ceshato isla markaasna loo aqoonsado nabad ku noolaato horumar barwaaqo iyo iyada oo ummaddu ay isku kalsoon tahay gacmaha isqabsadaan dabadeedna xisbiganu oo ka qayb galo maxaa la yidhaha doorashada soo socoto 2016 ayuu doonayaa wuxuu soo dhaweynayaa dhalinyarada jaamiciyiinta odayaasha indheergaradka aqoon-yahanka rag iyo haween intaba marka waxaan leenahay xisbiganu وحزب وجهده إنه مدة ولا عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.